dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland Admiral Ahmed Hurre Harri ayaa maanta socdaal uu ku yimi magaalada Berbera waxa uu kulan la qaatay kalluumaystada wadaniga ah ee ka hawlgashay xeebaha kala duwan ee Soomaaliland waxaana halkaas taliyaha ay uga warbixiyeen xaaladda guud ee badda iyo waliba sidii ay ciidanka ilaalada xeebaha ee dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland ay u wada shaqeyn lahaayeen waxa uu taliyuhu sidoo kale uu ka dhageystay warbixino la xiriira sharciyada ay badda ku galayaan kalluumaystadaasi in la hubiyo waxaana shirkani uu ahaa mid lagu dardargelinayay amniga dhinaca badda iyo wada shaqeynta ciidanka ilaalada xeebaha dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland qaar ka mid ah kalluumaystada oo iyagu halkaasi ka hadlay ayaa waxay sheegeen waxyaabaha ay ka wada hadleen kulankan saaka dhex maray taliyaha guud ee ciidanka ilaalada xeebaha dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland anigoo ah Jaamac Axmed Maxamed kana mid ah kalluumaystada Berbera shirkadda Al-Aamin waxaanu halkan maanta isugu nimi ciidanka badda oo uu hogaaminayo janankii ciidanka badda iyo dhammaan saraakiishii taliska kulanka ayagaasi wuxuu daaranaa ka wada shaqeynta nabadgelyada badda in wixii dhibaato ah ka jira badda aanu ka wada socono annaga iyo ciidanku sidii hore baanu uga wada socon jirnay waxaanu kaloo isla go'aansanay in bishiiba hal mar labadii biloodba hal mar in iyadana kulan aanu yeelano annaga iyo ciidanku wada shaqeyna waxaanu kaloo isla garanay in wixii dhibaato ah ee aanu annagu badda ku aragno aanu la soo xidhiidhno ciidanka badda ciidankuna waxayna siiyeen lambar aanu badda ka soo garaaci karno oo cid wixii soo kordha aanu kala soo xidhiidhayno lambarkaasina waxa weeyaan laba 92 ha yaa waxa weeyaa arrinteeda si wanaagsan bay u dhacday haddii ilaahay idin ka dhigo ciidanka baddana waa ciidanka koobaad aanu wada shaqeynta leenahay liisamadii iyo macnaha waxa badda aanu ku galanaa runtii waana la weydiiyey oo in aanu keenana 15 bishaan u balan taliyaha guud ee ciidanka ilaalada xeebaha ee dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland Admiral Ahmed Hurre Harri oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay qodobada muhiimka ah ee ay ka wada hadleen kalluumaystada dalkan Soomaaliland iyo sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen ciidanka ilaalada xeebaha ee dalka waxaan isugu yeedhnay kalluumaysatadii magaalada Berbera joogtay ee ka kalluumaysanaysay guud ahaan ayagoo u badnaa ama ahaaba kalluumaysatada wadaniga ah sababtaan isugu yeedhnay waxay ahayd koow inaanu sharcigooda iyo laysanka ay badda ku gelayaan hubinno ay noo keenaan oo aanu ogaano inuu sharci leeyahay iyo inaanu lahayn inaanu kala ogaano iyo inaanu ogaano waqtigu ka dhacayo qodobka kale aan isugu yeedhnay waxay ahayd inaanu ka wada shaqeyno nabadgelyada badda jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan saldhigga koowaad ee ciidanka ilaalada xeebaha ee Berbera qodobka kale aanu isugu nimi wuxuu ahaa inaanu xiriir hore aan lahayn dib u abaabulo iyo annagoo u sameynay haddaanu nahay ciidanka ilaalada xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaanba dalka ka sameynay lambar degdega oo haddii badda wax ka dhacaan lagu qaraqmo dhibaato ka dhacdo lagu arko nimankan kalluumaystada sharci darrada kuwa kontrabanada keena ama dhoofiya lambar ay si degdeg uga socda xiriiraan ciidanka ilaalada xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo isaguna dibna aanu ka baahin doono ahna 992 oo aanu iska kaashanay annagoo ciidanka ilaalada xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland dawladda hoose ee magaalada Berbera iyo hay'adda EUCAP meel kastoo la jooga lambarkaasi uu shaqeynayaa oo ay ka shaqeynayso networkan sharaa'igu waa lala soo xiriiri karayaa marka kaana inaanu isagana ku wareejino isuna sheegno maxaan ku idhahdaa xiriirkaasna aanu dib u abaabulo ayaanu isugu nimi iyo xog waraysi waxay warhayaan iyo waxaan annagu hayno ee ku dhibaataa dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland oo baddiisu aad ay u dheer tahay oo ay gaarayso 850 kilomitir
waxay xog qolo cid waliba ka hayso in ayadana isku xog wareysano iyo inaanu dib si joogta uga wada shaqeyno xagga ammaanka iyo anagoo ballan qaadnay haddaanu ciidanka ilaalada xeebaha Jamhuuriyadda Somaliland inaanu si joogta uga taakulayno mushkiladaha badda ka hela sida kalluumaysatada sharci darrada kuwa hubka keena kuwa rasaasta keena kuwa dadka tahriibiya kuwa maxaan ku idhaahdaa xayawaanaadka dalku iska leeyahay qaniimada harara ee kontrabanka iyo kuwa raba macdanaha kala duwan waxa kale qodob muhiim ah oo aan isku baraarujinay oo hoosta ka xariiqnay oo ahaa inaan badda la xaalufin ee kalluunka noocyo kamid ah oo haddaba dalka xiriiri ku ah badeena in la ilaaliyo lana yareeyo ama la joojiyo guud ahaan ka kalluumaysigiisa taana anaga gaar uga wada hadli doona wasaaradda kalluumaysiga iyo xanaanada xoolaha ee Jamhuuriyadda Somaliland waa hawl maalmeedkayagii aan awalba qaban jirnay dalkana way waajib nagu ahayd inaanu ka shaqeyno waxa noo harsan wali kalluumaysatada aan wadaniga ahayn ee shisheeyaha dibadaha ka yimi dalalka jaarka ka yimi anyway meel kasta adduunka kamida ka yimi ayagana inaanu maalin la kulano hubino sharcigooda mid waliba iyo sababta badda ku galayo ayadana aanu taasuna way noo harsan tahay oo waqtigeedii iyo hawsheedii ayaa noo socota sidaas ay ahayd wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu taliyo waxa uu xusay in kulankani aanu ahayn kii ugu horreeyay balse uu noqon doono mid ay mar walba isku hor fadhiistaan kalluumaysatada oo ay ka wada hadlaan arrimaha dhinaca badda iyo ilaalinta amniga guud ee badda mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud telefishinka qaranka Somaliland Berbera